shaqadayda badar qaybin ma aha dad badana isoo wacay iigu yimid inaan deegaanadooda mucaawino gaarsiiyo aan badar aan gaarsiiyo waxaan uga cudur daaranayaa shaqadayda badar qaybin kuma jirto mucaawino kuma jirto inaan meel gaarsiiyo shaqadayda waa inaan anoo magaca dawladda iyo kayga isticmaalaya aan dadka Soomaaliyeed ugu raadiyo inay deeq helaan deeqahaasna la xiriiriyo si ay ku gaari lahaayeen deegaanadii iyo dadkii tabaaleysnaa iyo saddexaad oo ah hadday jiraan caqabado dawladda dhexdeeda ah ama hay'adaha dawladda ah ama shirkadaha kala duwan ee maamula airportka ama garoonka diyaaradaha ama dekada maamula hadday jiraan caqabado ay kala kulmayaan dadka deeqda bixinaya inaan fududeyno ayadaasna waaye shaqada aan runtii inaan qabto aniga aan u taaganahay hadeertaan waa shaqo aad u weyn aan ka codsanayo kulna hadda ka soo baxay bahda media aan la lahaa agaasimayaasha warbaahinta iyo kuwa hortaaganba hadeerta arintaas inaad gacan naga siisaan waxa ugu daran waxay tahay dadku inaysan ogeyn in dalka abaar ka jirto waa ogtiina xafladaha socdo oo meel walba loo dabaaldegayo doorashadii natiijadeedii waa fiican tahay in la dabaaldego oo doorashadii si nabad noogu dhacday oo xukunkii si nabad aan kula kala wareegnay laakiin walaalayaalow dadka gudaha ee dibadda jooga dabaaldega u wareejiya dadka masaakiinta in la taakuleeyo